Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para badan aan soo baranay dhammaan ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan waa Somali Star Online Training English and ICT. Ida cashara fara badan oo aan u soo qaadanay halkaas la sii maraya waa muhiim jiddan. Taasi wixii macluumaad oo dheeri xasuus oo diri doonaa waxaan kugu soo xasumi doonaa Somali Star Online Classroom-ka fasalka si toos ah. Okay, email-kaaga marka u soo dirto casumaadda markaas ku soo dhacaysa waana very important. Somali Star Online Training somalistar.online.blogspot.com videoyada exercise example waa nagu jira Somali Star Online oo Facebook page-koodana waa soo gali karnaa. SSO waxaa loo soo gaabiyay Somali Star Online SSO Facebook page-kooda Somali Star Online hadaan kusoo qorno horaan ka soo gelaynaa waana very important. Ida cashara fara badan oo ayaan u soo qaadanay halkaas la sii maraya hadba step baan sii mari doonaa waana muhiim jiddan. Taasi cashara fara badan oo ayaan u soo wada qaadanay arday walba oo classroom-ka fadhiyana material-kiisa halkaas ugu jiraan buugagta casharada duuban waana casharadii taxanaha engineer Maxamed Bare casharadiisa taxanaha miigaanka. Ida cashara fara badan oo ayaan u soo wada faa'iideysanay ardayda meel walba oo adduunka ay kaga nool yihiin halkaas ka sii faa'iideysan doonaan waana very important. Taasi cashirkeena maanta lesson 61 buu ka sii bilaabanayaa buugga ka tirsanaa silsiladan iyo concept English oo buuggi practice and progress. Ida cashara fara badan oo ayaan u soo qaadanay halkaas aan ka sii wadaynaa buuggeeni iyadoo halka kale uu ka socdo buugga saddexaad oo developing skills and integrated course for intermediate students la yiraahdo halka buugga beginnerskana first uu ka socdo dhinaca kale. Iyadoo cashara fara badan oo aan soo qaadanay buugga afraad sida uu dhaqsiyaha badan influence la yiraahdo sida uu dhaqsiyaha badan baa soo gudgali doona halkaas ana la sii maraya waana muhiim jiddan. Taasi step by step baan ugu wada faa'iideysan doonaa ardaydii casharada ICT-ga casharada toos bay la socon doonaan waana muhiim jiddan. Laakiin ayaga wixii macluumaad oo dheeri toos waxay ku soo dirsan doonaan direct number casharadoodina waa diyaarsan yihiin qaybaha IT-ga way u duuban yihiin waana u diyaar. Iyadoo cashara fara badanna ay sugayaan kuwaasi inay ka qaataan diblomadii halka ardayda English language oo professionalna halkaas ay sii marayaan ayaga. Okay, maanta maxaan qaadanaynaa lesson 61 buu ka bilaabanayaa buuggeeni waana buugga labaad waxaana qaadan doonaa lesson 61 www.facebook.com/somalistaronline inta soo qortid waa horaa ka soo galaysa amaba www.somalistaronline.blogspot.com macluumaadkaaga halkaa ka soo arag marka aan soo gala cashirkeennii marka lesson 61 dangerous descent soo daadegii khatarta lahaa wey. Dangerous waa khatar, decent-na waa soo daadegid, decent waa cagsigeedii ah oo korufuulid ah. Decent waa korufuulid, decent-na waa soo daadegid. Okay, dangerous descent soo daadegii halista ahaa. In future mustaqbalka astronauts nimanka carbixiyeenada oo dayax gacmeedka raaca wey. Astronauts nimanka carbixiyeenada will be required waxaa looga baahan doonaa to descend inay kasoo daadegaan from the spaceship dayax gacmeed. Spaceship waa dayax gacmeed well inkastoo it is still within space oo hawada ku sugan aniyo to return to it ay dib ugu noqdaan. The ability kartida to do this lagu sameynayo will be necessary waa daruuri in future flights duulimaadyada hawada sare ama duulimaadyada mustaqbalka soo socda to distant planets meerayaasha fog lagu tagayo. Distant waa far, distant planets meerayaasha fog lagu aadi doono. Saynisyahanada are now hard trying waxay isku dayayaan to discover bal inay ogaadaan if haddii this is possible ay suuragal tahay the spaceship hawada sare Astra dayax gacmeedka la oran jiray which left oo ka tagay the earth dhulka a short time ago bari dhaweyd ama mar dhaweyd will be traveling wuxuu sii socon doonaa 300 miles ilaa 300 mile into the space oo hawada u gali doonaa at a certain point nuqdad la wada yaqaan at a certain point meel la wada og yahay. The Astra dayax gacmeedka Astra will stop wuu istaagi doonaa for a short time muddo gaaban and
an astronaut nin cirbixiyanada kamida will be attempted isku day doono to live inuu ka dago the stationary space dayax gacmeedkii taagnaa and then intaa kadib return to it uu dib ugu noqdo. We shall not now ma garanayno whether bal haddii the experiments tijaabooyinka has been successful lagu guuleysan doono until ilaa iyo we have received aan ka heli doono a radio message fariin xagga raadiyaha ah halowda ama taarka. The first message fariinta ugu horeyso is expected waxaa la rajaynayaa to arrive inayna soo gaarto ama ay timaado at 7 o'clock todobada this evening ee fiidnimadani. By that time waqtigaasi the astra dayax gacmeedka la yiraahdo will have been flying through wuxuu gudaha usii duuli doonaa have been flying through space wuxuu hawada usii geli doonaa for 17 hours 17 saacadood and will have circled wuxuuna ku wareegi doonaa the earth dhulka a great many times marar fara badan. When the first radio message fariinta raadiyaha ugu soo horeysa have been received la helo the result nataa'ijda ama natiijooyinka of the trip ee safarka will be announced waa la iclaamin doonaa immediately markiiba. The result natiijooyinka of the trip ee safarka will be announced waa la iclaamin doonaa. Will be tell waa la sheegi doonaa oo kale telling waa la sheegi will be announced waa la iclaamin doonaa waa la sheegi doonaa immediately markiiba. Compression precede soo koobidaadu right qor 3 questions 3 su'aalood in yaysan ka badan marka in not more than 75 words yaysan ka badan 25 xaraf. What waa maxay will it be necessary waxa daruuri ah for astronauts cirbixiyanada to do inay qabtaan future flights duulimaadyada mustaqbalka to distant planet si loo tago meerayaasha fog. When goorti shall we now aan ogaan lahayn whether bal haddii the astronaut cirbixiyaanku ama cirbixiyanada in the spaceship hawada sare Astra has been succeed ay ku guuleystaan oo kale in attempt inay isku dayaan to do this inay saa samayn karaan. When goorti is the message fariin message-ka expected la filayo goormaad la filayaa. When goorti haddana will the result natiijooyinka of the trip ee safarka be announced la iclaamin doonaa ama lagu dhawaaqi doonaa. Key structure-ka waa grammar bondinga cashiradeena ku jiro. By that time waqtigaasi Astra dayax gacmeedka la yiraahdo will have been flying through the space wuxuu sii dhex duuli doonaa hawada sare of 17 hours for 17 hours 17 saacadood. Do you remember ma xasuusataa this sentence I shall be writing waan qori doonaa letters waraaqo all day tomorrow period. They will have finished way dhamaystiri doonaan this bridge can in the years a time sanad gudihiis. waxaana la yiraahdaa present perfect tense. Compare waxaa barbar dhigi doontaa this pairs lamaanayaashan of sentences they will have finished way dhamaystiri doonaan this bridge can in a year's time sanad gudihiis. Sina uma dhaafi karto waa present perfect tense. iyadoo cashiradeenii halkaas ay kasii socdaan special difficulties-kana waa mashaakilka gaarka cashirka uu leeyahay. Words erayada often badana confuse la isku qaldo ama lagu wareero. Discover waa ogaansho. Find baa la mid ah invent waa ikhtiraacidi oo kale. Okay labada erbal sidee study bara marka these examples saalooyinkan sentences yahanada are trying waxay isku dayi doonaan to discover bal inay ogaadaan if this is possible haddii ay suuragal tahay. Widely invented the jet engine wuxuu ikhtiraacay oo kale motor cusub ama engine cusub leaf see loo isticmaala oo ahayd ka tegiddi life-na ku noolaanshihii ama joogistii ama noolaantii. Okay halkaanuu ku noolaayo oo kale he life is here 3 years oo kale. Leave-na waxa weeye ka tegistii.
let baalam let waxay idana tahay u saamax ama u ogoloobo kale study ayagana baro this example saalooyinkan astra gacmeedka astra left uu ka tagay laaf dhulka a short time ago waqti yar ka hor he lives wuxuu ku noolaa in West Street xaafadda West Street ayuu ku noolaa he leaves wuu ka tagaa home guriga early goor hore every morning subax walba exercise juice doorada correct words ereyada saxda in the following adoo raacay doona sentences-yada su-aasha koowaad some people dadka qaarkood never leave kama tagaan life home meeshay ku nool yihiin guriga ay ku nool yihiin ama dalkooda others halka kuwa kalena travel trip ee u safraan all the time xilli walba ay safraan she will not ha u ogolaan ha u saamixin leave inuu ka tago the boy inanka yar inuu tago ha u ogolaan baa la yidhi okay get on the buska raac even xataa though inkastoo it was the stationary meel laysla wada ogyahay it was uu yahay oo kale stationary laba macnay noqotaa waa meel marka dayax gacmeed stationary dayax gacmeedka waa la yiraahdaa stationary dukaanka qalabka lagu gadana waa la yiraahdaa okay it was stationary dukaanka qalabka alaabta gadoo kale during the journey inta safarka lagu guul jiray travel waan u safarayaa I shall write waan u qori doonaa to you on the ship waxaan ku safri doonaa way okay cafwan during the journey intuu safarka socday I shall travel waxaan ku safray to on ship markab إذا عشرة فربنا qaadanay waa Somali Star Online Training Professional English Language إذا عشرة إن تعنا Google jirno dhamaan ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan waana muhiim jiddan taasi qaybaha ICT-gana casharadiini waa diyaar miiska ay saaran yihiin waana very important wixii macluumaad oo dheeriyana waxaan la soo xiriiri doonaa somalistaronline.blogspot.com idoo koodna loo soo dirayo oo nala soo casumi doono classroom-ka toos aan fariisan doono koodna ku fariisan doono lambar sare halka somalistaronline.blogspot.com aan ka faa'iideysan karno exercise exam halka Somalistar Online Facebook page-koodana aan soo gali karno iyadoo casharo fara badan aan soo faa'iideysan lesson 61 baan qaadanay buug ka tirsanaa silsiladda new concept English oo ah practice and progress iyadoo casharkeena lesson 62 aan soo gudbeenay sida uu dhaqsiyaha badan waana jiraan waxaan baray casharada istaxanaa miigaanka waa Maxamed Iglan step by step baan uga sii wada faa'iideysan doonaa halkaas aan la sii maraya sida darteed fi amaan Allah